بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كسو دوايا مقالة تحنها أها وكساب سنة مادة إنجليسكا قارهان جريد كسديدات ولي وحان كجرني يريد وان عطب كوكوبات وكساب سنة ريفيسن muuqaaladii hore waxaa kaga soo hadalnay waxqabadyada koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad tobnaad kow iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad kan wuxuu ku saabsan yahay marka activity 13 waxqabadka saddex iyo tobnaad oo ku saabsan prefixes horgalayaal hore waxaa usoo qaadanay waxqabadyadii hore suffixes gadaalgalayaal hore yaa usoo aragnay markaan waxaan arkaynaa prefixes horgalayaal kuna qoran pageka 14aad marka ugu horeyso prefixes maxaa la dhahaa uu ku baraa wuxuu ku leeyahay marka remember xasuusnow that a prefix in horgalaha is a letter uu yahay xaraf or group of letters ama koox xuruuf ah which we add oo aan ku qorno ama ku darno at the beginning of a word bilowga ereyga suffix muxuu ahaa at the end of a word dhamaadka ereyga lagu qoray gadaalgalaha laakiin prefix waxaa lagu qoraa at the beginning bilowga of a word ee ereyga marka remember xasuusnow that a prefix in horgaluhu is uu yahay a letter xaraf or group of letters ama koox xuruuf ah which we add oo aan ku qorno at the beginning bilowga of a word ee ereyga intaas marka waxaa kaga bixinaa prefix muxuu yahay ama horgalo muxuu yahay prefixes horgalayaasha janji waxay bedelaan the meaning micnaha of words ee ereyada ereygii lagu siiyey haddii prefix aad geliso ama aad ku hor qorto micnihiisu isbedelaa marka prefixeska waxay sameeyaan waxaa ka mid ah in ereyga micnihiisa ay janji ku sameeyaan oo ay bedelaan okay marka haddii aan imaano qaybta su'aalaha wuxuu leeyahay add prefixes horgalayaal ku dar at the beginning of the following words bilowga ereyga soo socda bilowga ereyga soo socda waxaa ku qortaa horgalayaal ama prefixes example marka asaga kuu samaynayo dhinacaas bidixda waxaa kuu qoran wordkii ama ereygii dhankaas kalena midigni waxaa kuu qorin adding prefix ayadoo lagu daraayo horgale marka kow asaa kuu sameeyay laag waxaa laga wadaa ka helid maalan oo kale muuqaalkan uu ku caawinaa waa ka hesay marka waa inaa saartaa laag oo kaleeto haddii prefix ama horgalo lagu daro wuxuu noqonayaa dislag yani aan laga helin oo kale dislag number koowaad marka iyo wixii ka dambeeya waxaa rabaa inaa adiga uu kaa rabaa inaad ka jawaabtid number kow waa happy faraxsan ama farxad waxaa ku dartaa prefix ama horgale unhappy xanaaqsan oo kale dhihi karaa ama aan faraxsanayn numberka ku xiga labaad waa agree waa ku raacid ama ku waafaqid waa ereygii waayo prefix haddaa ku darto wuxuu noqonaa disagree waa yani ku raacid la-aan ku waafaqid la-aan inaan lagu raacin waxaas marka agree waa ku raacid prefix hadii la geliyo waxaa la gelin karaa prefixka dis waxaa soo baxaysa markaas disagree ku waafaqid la-aan ama ku raacid la-aan marka erey cusuba meesha ka soo baxay kii hore muxuu ahaa ku raacid kanna waa ku raacid la-aan marka laba micno kala leeyahay labadaas number 3 appear waa muuqasho appear haddii prefix lagu daro ama horgalo lagu daro wuxuu noqonaa disappear waa mirqid ama baabi'id disappear waa baabi'id ama mirqid markii hore wuxuu ahaa muuqasho kanna waa baabi'id marka la leeyahay marka prefixka wuxuu bedelaa ereyga micnihiisa tanaa laga wadaa micnaha ereyga hore aa aragtay haddii prefix la geliyo micno ka duwanaa soo baxaayo hore aa soo sheegnay numberka afraad kindly waa naxariis haddii prefix la geliyo waxaa soo baxayso aan prefixka ugu habboon la gelin karo waxaa ka mid ah an maxaa soo baxaya marka
unkind naxariis daro arxan daro kind waa naxariis unkind waa naxariis daro erey cusub waxa waa ka duwankii hore numberka shanaad direct waxaa laga wadaa toos wax toosan direct waa toos haddii la geliyo prefix ama horgalaha la gelin karo maxaa ka mid ah in oo ay noqonayso indirect dadban direct waa toos wax toos ah waay indirectna waa dadban ama aan toos ahayn marka waa ereykii hore ka duwan number 6 active waxaa laga wadaa wax shaqaynaayo you are active maxaa yani active aad tahay waa shaqaynaysaa ama maskaxdaada active waa way shaqaynaysaa haddii marka prefix la geliyo ama horgale wuxuu noqonaa unactive aan shaqaynaynin unactive aan shaqaynaynin numberka 7 ee ku xigo waa legal sharci waxaa laga wadaa sharci ama xalaal haddii lagu daro prefix ama horgale wuxuu noqonaa illegal xaaraan ama sharci daro illegal waa xaaraan ama sharci daro legal waa xalaal illegalna waa xaaraan ama legal waa sharci illegalna waa sharci daro numberka 18 necessary waa lagama maarmaan waxaa kaloo u noqonaya prefix hadii la geliyo unnecessary lagama maarmaan ahayn waxaan lagama maarmaan ahayn oo laga maarmi karo necessary waxaa waaye lagama maarmaan waay haddii laga hormariyo prefix waxaa imaanaysa cagsigiisa oo noqonayso unnecessary aan lagama maarmaan ahayn numberka 9 right waa qorid haddii prefix lagu daro ama horgale wuxuu noqonaa rewrite dib u qorid right waa qorid rewrite-na waa dib u qorid numberka 10 read waa aqrin haddii prefix lagu daro wuxuu noqonaa reread waa dib u aqrin reread dib u aqrin okay numberka 11 waa trained waa carbisan ama tababaran haddii lagu daro prefix ama horgale wuxuu noqonaa untrained aan carbisnayn ama aan tababarnayn numberka 12 ee ku sii xigo waa hygienic micnaheedu waa nadiif ah haddii prefix la geliyo ama horgale wuxuu noqonaa unhygienic aan nadiif ahayn numberka 13 ama ereyga 13 waa honesty waa daacad prefix hadii la geliyo wuxuu noqonaa dishonesty daacad daro numberka 14 ama ereyga 14 waa fair micnaheeda waa cadaalad haddii prefix la geliyo wuxuu noqonaa unfair aan cadaalad ahayn ama eexasho numberka 15 ee u dambeeyo waa tiddy micnaheeda waa nidaamsan haddii la geliyo horgale ama prefix wuxuu noqonaa untiddy aan nidaamsaneen ama isku dhex yaacsan 15kii erey marka oo la rabay in la geliyo prefix halkaas ayay kusoo dhammaadeen meeshaasaan kusoo gebagabeynaynaa haddii ay tahay marka kugu horeysay ee aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa inaad subscribe dhahto oo nagu soo biirto haddii hore aad noogu soo biirtayna waxaa kaa dalbanaya inaad muuqaalka like saarto sharena garayso waa mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu